السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashiin Fatxi oo idin wada maantana cashar cusub oo kale kusoo dhawaada channelkayga waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe noo saartid haddii aanad horey iigu jirin like-ta iyo comments-kana ha ka ilaawin comments-ka waxaad iigu reebi kartaa waxa la wixii fikradaad qabto dhiirigelin su'aal aad baan idin salaamayaa hadda iyo daawasho wacan waxyaabaha aynu rabnay maanta inaynu sameyno waxa weeyaan kalluun malaay qofba siduu yaqaano aynu qaab kale u sameynayno haddii ilaahay ka dhigo waxaynu ku daraynaa xawaashiyadan waxa weeye dhagayare iyo filfil wax yar oo milixa iyo wax yar oo barbarooni ah shiidan ayaan halkan ii yaala basbaas hadaad rabto waad isticmaali kartaa laakiin anigu barbarooniga u shiidan baan isticmaalayaa kalluunkii baynu soo jarjaranay qaabka yar baynu soo jaranay xawaashiyadii iyagana waynu soo tumanay maasha allah yoogadkana maxay tolay waynu isku qasaynaa xawaashiyada yoogad alla yoogadkaad rabtid ayaad ku darsan kartaa ama caanaha fadhiga yacni yoogad waa caano fadhiya gadhoorhka ah kaad rabtid baad ku darsanaysaa haddaad rabto waad iska dhaafi kartaa xawaajiyada toos baad u marinaysaa kalluunka uma baahnid inaad yoogad ku qastid laakiin anigu waxaan rabaa waxoogaa inuu dhadhan yaroo qoyaana gudaha ka yeesho hadhowto markaan shiila ka bacdi waynu ku yara radinaynaa waxoogaa baynu ku yara dhigaynaa maasha allah asxaabta waxaan rajeynayaa inay aada wada fiican tihiin dhammaantiin annagu alxamdulilah waa fiicannahay dee hawsha ha socoto ha la isla wado ha ilaawina asxaabtiina inaa usii sheergaraysiin si iyaguna ay uga faa'iidaystaan qofkay u baahan inuu samaysto kalluunkan yar ama malaygan qaabkan aan u sameynayo afurad xitaa waa lagu afuri karaa sambuuska markaad ku daashid way fiican tahay iyo burshiilshiilka iyo waxa marka lagu daalo waxyaabo kale in la samaysto marka hawshu ha socoto halkan waxaynu ku haysanaa daqiiq ama bur halkan waxaynu ku haysanaa beed ama ukun halkan waxaan ku haysanaa roodhidii qalalayd ee shiidnayd haddaanad roodhida qalalan haysanin wuxuun baad samayn kartaa beedkaad dhex gelinaysaa kadibna burka ayaad ku duubaysaa ama daqiiqda ayaad yacni ku ridaysaa kadib maxay ahayd waad shiilaysaa hadda laakiin anigu roodhidii qalalayd baan haystaa ee shiidnayd marka waxaan sameynayaa burkan ku horeysiinayaa oo aan kusoo dhoobdhoobayaa burkeedaas iskaga dhex dabaalanaysaa daqiiqda oo kalluunkiya xoogaana wuu inoo soo yara raday oo yoogadkii iyo xawaajiyadii iyo milixdii aan ku daray ayuu xoogaa ku jiray soo uma baahna hadhowto inaad xawaash kaliya waxaa ku darto dhexdiis isaga udgoonkiisii iyo dhanaankiisii iyo wixiisii wuu wataa kadib waxaynu ku dabaalinaynaa waxa weeyaan beedkii inoo qasnaa haddana roodhi shiishiidii magac kolley uma haysano sababtoo ah wadankeeni maynaan isticmaali jirin roodhidan waxyaabaha sidan la rabo in loo dhoobdhoobo ee la shiilo ayaa badanaa lagu darsadaa marka maasha allah qofku isagaa samaysan kara xitaa haddaad rabtid intaad roodhi qalajisid ayaad shiidaysaa kadibna maxay ahayd tolay saasay kuugu soo baxaysaa kalluunkii saasaynu usoo wada dhoobnay maasha allah wuu ku diyaar yahay wuxuunbaa u dhiman haddii ilaahay ka dhigo in la shiilo mardhow saliida lagu guro madii yarayd waa maran tahay daqiiqdii wax yar baa kusii jira beedkii 4 xabe ugu dambeysay baa ku dhex jira ku dabaalanaya kalluun iyo dabaal miyaa kala maqnaan kara waa in la dabaaliyo maasha allah qurux weeyaan udgoonka dhagayarihii iyo filfishii iyo
ayaa saas usoo kamkamaya. saliid baynu dabka saaranaynaa ama waaba inoo saarantay maasha allah. saliidda maxaan ku idhaahdaa inay xoog u kululaato ma aha markaad kalluunka noocana shiilaysid, sababtoo ah yacni saliidda sambuuska sidiisa loo kululeynayo kale looma kululeynayo. sababtu waxay tahay kalluunku waa ceedhiin, dushiina wuu ka dhooban yahay. marka haddaad saliid kulul dhex geliso korkiiba markiiba ka gubanayaa, dhexdiina qeyrin buu ka ahaanayaa. marka waxaa fiican inaad dabka u yaraysid oo deedna aad dhinaciiba dhowr daqiiqo shiishid, 3 daqiiqo 4 daqiiqo. marba intaad leedahay wuu bislaaday maasha allah. saana u shiilmayaa qurux weeye. udgoonka waxaan ku idhi kaaliska arag. dhinacii kale markaynu u rognayna sidan markuu bislaaday maasha allah weeye. waxaad rabta ayaad ku cuni kartaa. anigu afuradaan u diyaariyey, xoogaa salad iyo aso tomato iyo waxyaabahaasaan rabaa. laakiin waxaad rabtaa haddaad rabto baradhaad u shiilan kartaa, haddaad rabto maxay tole sidiisa ayaad soos yar ugu samaysan kartaad ku cuni kartaa ama ketchup. maasha allah sidanaan usoo qurxiyey bileydhkii afurada. xaba tamaandha iyo jeex lilin dhanaanta haddaad rabtid ood ku darsanaysa, haddaad rabtid uma baahnid. xoogaa yaroo soosana koobka iyo galaaskaas ay ugu jiraan. marka soos alle sooskaad rabtaad adigu